madashaan waxay u taagantahay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminayo maalin kasta dulumkaas iyo mid lamid ah xafiisyada dawladda ka dhacaan maalin kasta Soomaaliya maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallaahi thumma wallaahi diyaar u nahay qaadana meesha ugu sareysan gaarsiinayna magaaladan Mooriyaana hayso jirta Soomaa wala la dagaalamo wala baxsh musaabante Ethiopiana soo galay maxaa lagu sameeyay wala bixi shabaab qabsaday marka xoog badan yihiin dadkan والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هذا سن جورجين وبحنينا بسم الله الرحمن الرحيم دولة فدرال كاه الصومالية وحي آد ولا يعبتي هذا الكلام لما فلان كهاي كسو يري مدني شريف شيخ أحمد مدحوينه هراء الصومالية وها هذا فلان واكون نقضي جودهان ومدى الصوماليات كاسو أن أقل من مقامك يكرام هذا لقى فلان كره أفضل كان أستانقرن وصون نقضي سيدا سوجد waxaanu madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magaciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dawladda Soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa horu socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummadda Soomaaliyeed waxay maanta higsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran